loo meedhiyey aad uga barateen halkan idinka soo gudbiyo wararkii warbixinada markaa ka dhacay dunida kuwooda ugu waaweyn. Waxaanu idinku soo bandhigaynaa fiidiyowgan halka uu marayo coronavirus COVID-19 maanta oo taariikhdu ahayd 6 bisha 5 2020. waxaan idiin soo gudbinaynaa wadamada ugu sarreeya ee uu saameeyey dadkooda iyo sida ay u kala horeeyaan iyo sida ay ugu kala badan yihiin. waxaanu idin siinaynaa waa update. waxaad aragtaan globally tirada kiisaska waxa uu marayaa dunidoo dhan guud ahaan 3,525,116 qof. waa sarakac aad u sarreeya. tirada dhimashada waad aragtaan waxa ay maraysaa 243,000. aad bay iyaduna u sarreysaa. haddaan idiin soo gudbina halkan waad aragtaan qaaradaha sidai ugu kala darajo sarreeyaan. Yurub baa ugu horeysa, waad aragtaan liidinta jaallaha. graafiskaas wuxuu muujinayaa Yurub halka ay kaga taagan tahay coronavirus. dunida intiisa kale siday uga badan tahay. Yurub keliya dadka uu saameeyey waa 1,566,000. waxaa kusoo xigta liidintaas oo ah America waa 1,477,000. Eastern Mediterranean-ka 219,000. Western Pacific-ga, South Asia, Africa halka ugu hooseysa qaaradaha waa Africa 32,570 weeyaan guud ahaan Africa oo dhan marka la isku daray. graafikaasaa kala muujinaya Africa waa kan ugu hooseeyo liidinta buluugga ah. haddaan hoos u daadegno daily caseska maalin walba ah waa kuwaas siday kala sarreeyaan. wadamada marka high cases by country territory of area waad aragtaa United States Mareykanka waa 1,154,000. dalka ugu horeeya oo ugu badan waa Mareykan 1,154,000 buu marayaa. aad buu u sii socdaa. waxaa ku xiga Spain oo 218,000. waxaa ku xigta Talyaaniga oo 211,000 ah. farqi yar baa u dhexeeya Spain iyo Talyaaniga iska dhow. Ingiriiska kusoo xiga oo dalka afraad noqonaya oo 1,900,000 ah. 190,000 weeyaan 190,000 Ingiriiska. Spain waxa weeyaan 218,000. Talyaaniga waxa weeyaan 211,000. haddaad eegtid Talyaaniga hoos buu u socdaa. Talyaaniga waa aragtaan 5 May hoos ayuu u dhacay. 540 qof keliya laga helay halka Mareykanka laga helay 5 May waxaa laga helay Mareykanka hal maalin gudaheed baa lasoo sheegay 29,000 oo kiis. waa tiro aad u badan. haddaan hoos ugu sii daadegno Talyaaniga hoos buu u socdaa. waad aragtaan graafiks uu noo sheegayo waxaa laga helay 2,211 hoos buu u socdaa. Ingiriiska qudhiisa hoos buu u socdaa 3,000 iyo saasuu hoos ugu socdaa. 5 bisha 5aad hoos u dhac 3,985 weeyaan. haddii aynu eegno fiiri 4 May 4,300 buu ahaa. 3 May 4,800 buu ahaa. 2 May 6,000 buuba gaaray hal maalin keliya. soo maaragtay 1 May iyo 2 May aad ayuu u kacsanaa. Talyaanigu isagu hoos unbuu sii socdaa. waa fiican yahay. waxaad moodaa in waxaa ku xiga dalka 5aad gelaya Jarmalka
jarmalka hoos buu isagoo qudhiisa u socdaa May 5-teedii 685 weeyaan afarta 679 wuxuu aad u kacay May 2-deedii waxaad moodaa May 2-deedii iyo 1-deedii inay wadamadu dhinaad ku xilin 2500 baa jarmal laga helay ruushka aad u kacsan yahay ruushka maanta shantii waxaa laga helay 10,000 oo qof waxaa la oran karaa dalka labaad ee sare u kaca kaga jira waa ruushka dunida marka loo eego bisha 5 May waxaan tegaynaa Faransa iyadoo hoos buu u socdaa Faransa 534 buu marayaa Turkiga isagu dadaal badan buu wadaa hoos ayuu u socdaa Turkiga maalinta ka dambeysa laga soo bilaabo 30 Abriil oo aad u kacsanaa oo 2,900 gaaray wixii ka dambeeyay saas hoos ugu soo socdaa ilaa 5 maalmood waxaa ku xiga Brazil iyadoo qudhul graphics sida muuqato hoos buu u socdaa inkastoo 4,000 oo qof laga helay Iiraan waxaad moodaa inuu Iiraan sare u kacay marka loo eego 5 bisha wuxuu marayaa 1,300 halkii 1,200 marayay maalmo dhoweyd hoos buu u dhacay 2 May iyo 1 May iyo 1,800 iyagoo kala ahaa laakiin waxaad moodaa inuu haddeer uu 5 iyo 4 uu kor u kacayo 1,200 1,300 uu gaaray China oo ah meesha uu ka soo bilaabmay waxa uu keliya China oo Febraayo 12-keedii ayuu wuxuu ahaa China 15,000 marka uu maray bishaas Febraayo oo ahayd bisha labaad 13-keed wixii ka dambeeyay China down hoos buu socdaa waa aragtaan graafiga dhulku yaalaa ilaa laga soo bilaabo Febraayo 13-keedii iyo 12-keedii waxaa la oran karaa labada maalmood keliya marna 2 kulay marasho wixii ka dambeeyay China sidoo hoos ugu soo dhacay ilaa haddeer waad aragtaan 100 ilaa 90 sidoo hoos buu sii soconayaa saas ugu socdo waad aragtaan 4 iyo 3 iyo 6 iyo uu marayaa 8 Soomaaliya 5 bishii 3 qof keliya laga helay Canada oo iyadu uu kor u kacay May 4-teedii irka uu galay 1,900 uu May 3-deedii 4-teedii isku taagay May 4-teedii 3,700 buu gaaray 3-deedii 1,900 hoos buu marka hal mar u dhacay aad bay waxay u geliyeen dadaal 479 keliya laga helay daawada waxaan idinla qaybsanay waa update wararkii ugu dambeeyay coronavirus yaalku dunida ka marayo iyo sida uu yahay kiisaska 86,000 bay isku noqdeen oo la helay dhimashada 243,000 bay noqotay kiisaska dunida guud ahaan la cadeeyay waxay noqotay 3,500,000 Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh tan iyo kulanti dambe oo wanaagsan